الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى بمهد أولي الإسكاله أنا إن شاء الله تعالى waxaan taaban doonaa si kooban bal muuqaalka mas'alada ay leedahay iyo qaabkay u dhacdo waxaan kala raacin doonaa meelaha ishkaalaadka leh ama madmadowga leh ee culimadu ay ku xaraantinimeeyeen baan insha Allah taala tilmaan ka bixin doonaa. Marka koowaad forex foreign exchange وكلمة أما لبا كلمدود أو إنجليزية معناه دي صرف كالعيها قلاد. foreign exchange وحكدع وهذا طلقها اللي forex كاللي هذا وكدع النتكة يهدي بإدمها هي أونلاين هم بودعة صفة أودعه qofka doonaya barnaamijkan inuu bilaabo waxbarasho ka horeysa uu qaataayo IML yiraahdo iyada caawa halka kaga hadlimayno oo uu ku fahmo sida suuqa loo galay qaabka uu shaqeeyo iyo wixii lamid kadib wuxuu ka bilaabaa inuu account furto accountkaas lacag ku shubo nin dilaal ah oo broker ah oo suuqa caalamiga ee sarifka iyo waxyaabaha isagu awood leh inuu ka shaqeeyo oo qofku lacagta ku shubaya wuxuuna marinayaa bangiyadan localka ama hadee beedmahayo qanawaadka kale marka suuragalka ah marinaya laakiin lacagtu waxa ay marti u tahay dilaalka isaga iyo suuqa u dhaxeeya qof suuq soo gali maayo dilaalkaas uu martuu yahay isaga lacagta lagu shubay lacagtaas lagu shubay waxa laga heshiinayaa isaga iyo qofkan macaamilka iyo dilaalku ka heshiinayaan lacagta waxa base looga dhigayo ama asaas looga dhigayo oo hadhow labadoodu ay ku macaamilayaan markay wax soo celinayaan markay wax kala goosanayaan iyo wixii lamid caalamka qodobba lacagaha ay aad isticmaasho bay ka dhiganaysaa asaas iyo base ka dhiganaysaa Soomaali ahaan waxaan filayaa doolarkeenu shilinkeenu aad mana awood badna caalamkana aad ugu ma jiro inta badan doolar baad ay ka dhigtaan dadka macaamiisha ay base ka dhigtaan inta kadib وسيد عام كابان وشرحيا كدبنا وحن دول استاغيا meelaha ishkaalaadku ku jiraan wixii laga gudbi karay wax laga gudbi karay insha Allah taala kadib waxa qofka macaamilka dilaalku uu siinaya fursad in lacagtaas la laban laabi karo hadiye kala duwan inta caamka ama sida caamka 100 jeer ba la laban laabay hadii mesela $1,000 oo dhigtay $100,000 baa la gaarsiinaya lacagta suuqa ku galay lacagta lagu kordhinayo ee awoodda uu ku yeelanayo in suuqa ku galo leverage baa leeyahay leverage ama raafica maaliya luqada carabiga hadii la isticmaalo baa leeyahay lacagtaas dilaalku 100,000 iyo marka qaar kood milyan bay gaaraysaa oo marka qof 10,000 dhigto 1 milyan baa la gaarsiin karaa oo dollar lacagta leverage-ka ah dilaalka laftiisu lacag meel u taalo oo haysta maaha waa lacag oo ka amaahanayo bunuugta waxan ku shaqeystay caalamiga lacagta bunuugta amaahisaa lafteedu lacag xaqiiqiya oo hadii la kaash dilaalka loo siiyo kaash ay u bixinayaan ma waa la yiraahdo nuquud qaydiya lacag
إلكتروني وكم موقنيسا نمبرهان uga muuqanaysa shaashadaha laga galo suuqyada caalamiga laakiin lacag kaash bangigu amaahin dilaalka ma jiro sidaa darteed lacag kaash oo dilaalku qofka amaahinayaan ma jirto ujeedkuna ma baaha in lacag lees amaahiyo rasmi iyo xaqiiqiya laakiin waxa weeye suuq wahmi ama hadaba idmahayo ismoodsiis oo lacagta amaahda elektrooniga aan la taaban karin macni la heli karin hadii loo baahdo taas suuq lagu geliyo bangiyada laftoodu lacagta elektrooniga qofka ay amaahinayaan lacag ay hayaan iyaga hadii la keeno oo kaash ku bixiyo ay helayaan ma waa lacag ku timid wax la yiraahdo khalqa nuqud oo bangiyadu lacagta xaqiiqiga ay hayaan ee kaashka intaasoo laban laabkeeda in suuqa ku galaan bay awoodaan oo ku timaada qaabka lacagta bangiyada ay curiyaan oo dhaliyaan oo hadda halkan aynan kaga faaloonaynin bangiga marka lacag aanu haynin oo elektrooniga amaahinaya dilaalkuna lacag aanu haynin buu amaahinaya macmiilka lacagtaas marka shaqada ku bilaabmaysa lacagta ayaa ku shaqaynaya dilaalka xaqiiq ahaan dilaalka ku shaqaynaya qofkan waa laga yaabaa ardiyada ama iibabka loo soo bandhigo inuu aqbalo laakiin cidda go'aanka kule si dhab kala goynaysa waxa weeye waa ninka dilaalka ila awood buu leeyahay hadii khasaare yimaado lacagta intuu sarifo bedeli karo oo soo celin karo intii uu lahaa macmiilku wixii ka go'ayna ka goyn karo awood kaamil buu leeyahay lacagahaas marka waxa lagu bilaabayaa sarifka suuqa ka socda ee elektrooniga marka nambarada lacagaha marka waxa uu soo sheegaya dilaalku khabiir ku yahay suuqa maxaa laga faa'iideen cumladee ama currency ama lacagteeba suuq lahayn waxyaabahaas uu soo sheegaya qofka macmiilka ahina go'aan ku qaadanaya laakiin waxa fulinaya oo kala goynaya safqada waa qofka dilaalka waxyaabaha marka ay ku macaamilaan waxa kamida lacagaha la amaahiyay macmiilku wuxuu ka doonaya commission hadaan commission ka qaadan oo laga cafiyo qofka oo forex islami iyo waxbay qaarkood sheegaan mar walba dilaalku wuxuu qaadanayaa lacag oo ku qaato dilaalnimada suuqa kaaga yahay wakiilka iyo dhexdhexaadiyaha kaaga yahay kori hoos marka qofkan macmiilka qofkan dilaalka ahi wuxuu kugu leeyahay hanti haduu lacagta uu ku dayminayo uu ku xisaabiyo deyn faa'iido ka doonaya deynta saartay hadii lagu macaamilo deyn aan faa'iido lahayna kullayba wuxuu ka doonaya commission iyo adeeg iyo khidmad buu ka doonaya ku aadan inuu adiga iyo suuqa u dhaxeeyo markaa suuqa ku galiyay lacagahaasi tareedada dhacaya ama isbedelada sarifka dhacaya waa isbedelo elektroonigaasoo aan xaqiiqo la gudoomi kara lahayn si loo gudoomo iyo si qofka aad ka iibinaysa aad u gudoonsiso minda aadan garanayn marka laga reebo lacagaha aad ka arkayso shaashada isbedelayo waxaan iibi waxaan gatay ee laga tusayo shaashada waayo waxaan marka horeba lacag xaqiiqi oo kaasho oo la isu dhiibay oo ninka dilaalka ahi uu hayo adna ku amaahinayo oo hadda tira lacagta milyanka ama boolka kuna ii soo shub arkimays ma awoodba uma leh marka waxa la bilaabayaa silsilad taxana oo sarifiyo kala dambeeya mid baa sarifaysa waxa la oranayaa lacagta intaas waxa la $100,000 waxaad ku sariftay مثلا 7,000 oo gini oo sterlin 7,000 meel ay yaalaan
oo dhaba oo aad ku ogtahay ama dilaalku ku og yahay ma jiraan aan ahayn halka inaad ka arkiso muddo kadib baa la oranayaa waxa dalab yeeshayeenkiyo ginigii waxa loo bedelayaa yeen saacad kadib 2 saacadood kadib isna waxa oranaysaa iibi adoontii horeba gudoomin oo gurigaaga iyo guri tolka meel ayan oolin baatii labaad inta tad iibiso ginigii iibiso gin aadan haynin buu ahaa baad ku iibsanaysaa mid labaad oo yan ah 3 saacadood kadib baa lagu oranayaa waxa la helay riyaal sacuudigii baa dalab yeeshayo yeenkii baa la doonayaa ku iibso riyaal sacuudi waa laga macaashay kadibna waxa oranaysaa iibi wuxuu ku oranayaa waxaan iibiyay yeenkii waxaan ku siiyay intaas oo 100,000 riyaal sacuudi isna meel uu yaala xero uu yaala oo dhabihi ma jirto waxa inta garab socda tareedada aad samaysay iyo ganacsida aad samaysay wixii faa'iido ah marka ay sheegaan iyada oo number bay lacagtaadii hore asalka ahayd yay fuulaysaa yani ku soo biiraysaa waxaan ka arkaysaa shaashada muaamalada marka la soo xooriyo sawirkeedu waa sida maxaa marka dhibaato ku jira muaamalada waxa ku jira dhibaatooyin fara badan waxa kow ka ah shareecadu marka ay ka hadlayso iib waliba laga hadlayo sarif arkaan iyo shuruud bulay iibku guud ahaan marka hore wuxuu u baahan yahay laba dhinac oo wax kala iibsada waxa loo baahan yahay wixii la kala iibsamayay oo labadaba la hayo maxal aqdigiye haduu sarif yahay lacagtii ka tan iyo tanba in la hayo haduu badeecay lacag yahay tanba labadaba in la hayo iyo u baahan qodobka koowaad qofkan macmiilka ah ee Soomaaliya jooga iyo dilaalku ma isu wakiil baa masuuxbay kala iibsanayaan macnihi sida qoran waxa weeye inta badan aqdi wuxuu dhaxmaraya qofka dilaalka iyo customer marka ma iyaga wax kala iibsanaya mise dhinac saddexaad ee laga iibinayo baajira oo dilaalka adu wakiil ku yahay cid kale wax ka iibinay cid saddexaad oo la og yahay oo meel fadhida oo la leeyahay lacagtaas haysataayo ka iibin saddeexaad ka iibi matrix ee suuqa elektrooniga waxba kacay waxba dhacay kana dalab ku bedel kana jabay iibso way hadii la yiraahdo dilaalka wax iibinaya dilaalku ma adu wakiil ka yahay mise naftiisu wakiil ka yahay wuxuu markuu beec iyo shira yahay laba caaqid baa la doonayay laba cid oo heshiis wada gasha marka haduu saw ka iibinayo adna iibiyihii ka iibsadihii baa tahay wakiil kuma noqon karo wakiil kuma noqon karay halkaan marka waxa ka jira dib baa ka jirta waa marka la kontraadka la bilaabay waxa la kala iibsanaya aan soo noqon waxa la kala iibsanaya waa lacag baa lacag lagu iibinaya sarifku wax kale ma waa beec naqdi bin naqdi waa lacag lagu iibiyay lacagta aad iibinayso ma haysid lacagta uu iibinayo ma hayo hawa la iska iibinayo lacagta aad iibinayso hadii bayd ma yahay tahay tii deynta ahay waana siday u badan tahay xeradaada iyo xerab hadii ba ku dhow oo aad gaari karto midna ku beddelto taw iibinaya isna waa elektrooniga bangigu amaahiyay mid uu hayo oo xere u tirta ma halkaana waxa ku buray lacagta la iibinaya lacag la hayo maaha ilaa wuxuu waa inuu asal leeyahay waa lacag hawada ordaysa elektrooniga dilaalka bangi amaahiya isna adigu ku sii amaahiyay waxa kale iyana waxa noqotay waxaan jirin marka wixii la kala iibinayay lama hayo nabi sallallahu alayhi wasallam la tabi' ma laysa indak hadith Hakim ibn Hizam waxaadan hanan oo lahayn ha iibin qodobka kale deynta uu ku siinay hadii deen lagu macaamilo faa'iido u dhalisay waxa la oranayaa faa'iido dhashay oo isagiina commission buu ka doonay hadaanu lacagta ku doonaynin wuxuu ku doonayaa wasiidka iyo dilaalka uu ku yahay suuqa adiga ka xig inuu wax ku amaahiyo iyo inuu ka qaato faa'iidana qaacida sharciga jabinaysa waa kullu qardin sharra naf'a fa huwa riba ama kasto oo soo jiida manfac waa riba weyn waxa ka soo qaadaa hadaba idmahayo inaan lacag ku amaahin
waxa hadda qoraalada ay soo dhigayaan hadee been mahayo meelaha qaarkood oo leeyahay sheekh baa la weydiiyay uu banay wax badan bay taxayaan ay leeyihiin deyn qaadan maayo kan sameyn maayo wax inta badan suuqa aan ka jirin waayo lacagtan aad dhiganaysaa inta badan ta shaqaysan ma $1,000 oo suuq caalami oo balaayiin triliyoono lacag istaba marayso $1,000 awala looma ogolaba in lagu galo hadii la geeyana wax alla wuxuu ka goynayaa ma jirto marka dadka qaar waxay ku celcelinayaan lacagta dilaalka qaadan maayo deyn qaadan maayo leverage qaadan maayo tayda in shaqeynaysa waa waxyaabaha ay dadka yiraahdo islaamiyaan sameeyay ay sheegayaan waxa ka soo qaada taadi ba shaqo gashay lacag dilaalayahay ba maad qaadan oo wahmiyo oo beenbeen ma kunkaagi ba ku shaqeynayay kunkaagi waad iibis waxaad siisay maanta maalan 700 oo gadiya starliini 700 waxay kaaga baahan tahay kunkii iyo ho inaad kala adeeba idmahayo aad kala gudoontaan bay u baahan tahay lacagta noocan suuqa lagu sarifaa xitaa hadii taali xaqiiqiga ah ay tahay sarifkeedu wuxuu ku soo gaaraya nidaamka caalamiga 2 maalmood kadib hadii maalmo fasax la galana oo mesela jimcaha iyo sabtida iyo axad sida loo kala duwan yahay ee dhaqamada iyo diimaha caalamka hadii ay maalaha ku beegantana 5 casho kadib baa lacagtii bedelka ahayd waa hadii taadu ku shaqeynaysa gudoomisa sharcigu ma ogol yahay lacagtaadii aad sariftay aan ku soo gaarin in aad sarifkaas ma ansaxayeen waa maya macnaheedu taadu waad bixisay tiisi ma haysa ma gudoomi iyadoo taas jaban tahay oo hadee ba idmahayo sarifkii hore aanuba ansixin yaa waxa dhacaya inaad mid labaad iibiso kiniga ku soo gaadhay bad iibinaysa hadee ba idmahayo oo yansiinaysa iyana bi'maalam yuqbad waxa la qabdoonin in la iibiyo bay noqonaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam naha an tubaa as-sil'u haythu tubtaa hatta yuhzaha at-tujjar ila rihali waadida in la gado bay'ada meesha lagu gato ilaa gudihii loo qaato waa bay'a caamahan markuu sarif yahay waxa ka horeysay maba ansaxaya bay'u hadaydan hoo iyo hoo kala gudoomin hal masalan ku daraya insha Allah taala bas maxaadir badan bay leedahay oo diktoorku iga dambayn doono laakiin hal masalan doonaya oo qarqarday tilmaamay inaan xoojiyo waa mas'alada qabdiga xukmiga qabdiga iyo gudoonka dahabka iyo fidadu wahaan ama yadan biyadin sida xadiisku sheegayo حديث عبادة بن الصامت عند صحيح مسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبطن بالبطن والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت الأصناف وبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد حتى هذيك لدويه اللبضة العقود هو يهود والغا مرماوي سيدا الصحدة صرفكو قدون كيسو وين العقد حقيقة الاستابسيتها waxa jirta culimada qaar inay dhayn qayb qabdi xukmi ah yaani waxa jira gudoon aan hoo iyo hoo ahayn laakiin laga soo qaado inuu hoo iyo hoo yahay waa kee waa ka lacagtaada ilbriqsiga ba aad kala bixi karto account مثلا waxaad iibisay door waxa lagu siiyay مثلا hadee been mahayo gini sterlinia marka laxdadaba uu ku dhaco ama ilbriqsiga lacagtu account ku dhacdo say sheegayaan ay ka muuqato waa inaad kaarkaaga intaad gashan karto mashiinada iyadoo lacagtii kaasho cadaan aad soo daadsan kartaa la soo bixi kartaa ama bangiga hadaa taagan tahay oo leeyahay way ku soo dhacday isii aad ogta ku siin karaa kan ay ka hadlayaan ee leeyihiin lacag ba halka ku dhacday way ka baxday intaas ku birtay qabdi xukmiya oo sarifku ku socon karaya ma aha waxay culimadu yiraahdaan waa qabdi xukmiya oo ibtidaa'i ama waa qayd ibtidaa'i macni waxa weeye waa diiwaan gelintii hore ee lagu diiwaan geliyay inaad faa'iiday waxa laakiin iyadii ma waxaana daliil u ah laba casho kadib mooyee ma qaadan kartid hal masalan ku soo khatimaya oo ragga ka shaqeeya markaan in badan ka wada hadalay waxay dhahay anagu waxaanu isticmaalnay system ku xiran shirkad Kenya ah oo isgaarsiintooda M-Pesa oo sida saadka u shaqeysa marka aan ku dhacdo lacagteedii waxaan kula bixi karaa ama
lacagta Kenya shilling ama waxaan kula bixi karaa doolarka Mareykanka waaye dhib male tareedkii koowaad samaysay lacagtii waa marka lacagtaad ku shaqaysanayso kii koowaad baad samaysay gini baa ku soo dhacay giniga waxaad iibin kartaa dad isaga la bixi karto waxa la baxaysaa waa baxay hadiiba lagu ogolaaday in markaba qaadato wuxuu la bixi karaya oo two base ka dhigtay oo maxay ahayd lacag doolar ah waayahay marka labaad gacanta labaad waxaad iibinaysaa madorba mise waa gini sterlinia bay waxaad iibinaysaa gini ila gini baad haysatay marka waxaad qaadanayso iyo waxaad iibinaysaa wax isla maaha sida darteed waxaad iibinaysaa ma haysid waxaad iibinaysaa ma haysid ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa fahamka Allah inoo waasiciyo waa dhamaystir waxaan ku darayaa insha Allah ta'ala mid baa muhiim ah ugu horeyn inaan tilmaamo oo aynu ogaano markaas waxa weeye waan dareensanahay culimo ahaan dhibaatada shaqo la'aanta ah ee dalka ka jirta waan dareensanahay baahida loo qabo in la helo hab ama nidaam runtii ayadu ku shaqaystaan oo ay dhibaatada ama cidhiidhiga jira ee shaqo la'aanta kaga baxaan waxaan dhiirigelinaynaa hab kasta oo dhibta jirta iyo faqriga laga gudbi karo waayo faqrigu waa munkarkana rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه إن مركز للا يمادو قرشة كستا ولغا بخايو باهيدا فقري ee jirta waa talaabo mudan in la dhiirigeliyo oo laga wada shaqeeyo waxa sayana muhiim ah in qaabka looga baxayo shaqo la'aanta iyo faqrigu uu ahaado mid saxan oo aan ahayn kudka ku hay ahayd oo qanshabu waa in aanu noqonin oon baahanahay bakti looma cuno sidaa awgeed waxaa muhiim ah inaynu saxno oo isla toosino sidaynu uga baxayno dhibaatada shaqo la'aanta iyo faqriga jira in aynu saxno waa muhiim dhalinyarada barnaamijkaas la yimi ee suuqa soo geliyay dadaal bay sameeyeen ay doonayaan inay munkarka faqriga ku suuliyaan ama dhiisha faqriga ku tuuraan laakiin sixid iyo toosid bay u baahan yihiin dowrka marka anagu aanu halkan u soo fadhiisanay waxa weeye in aanu wax toosino in aanu mas'uuliyad diineed oo culimada saaran gudano ma aha marraba in cid laga dhooqeeyo ganacsigooda iyo tuumbada u irmaan laga dhooqeeyo ama qaar kale oo moogan loo furo taamanaheedu waxa weeye haddii natiijada baaritaanka culimadu sameeyeen kadib ay soo baxdo jawaab taban oo ah in camaliyadani aanay sax ahayn oo madmadow sharci oo badan uu ku jiro macnaheedu maaha culimadu waaqacay ka dhacsan yihiin may fahmin shaqa abuurkay cadow u yihiin dhalinyaraday faqriga ku dilayaan macnaheedu taa maaha sidoo kale macnaheedu maaha hadday idhaahdaan masaladani waa bannaan tahay oo waa tuumbo cili ka soo dhacday oo arsaaq ilaahay oo furanaha lagu yaaco macnaheedu maaha inay yihiin ragaan lagaga dubo dhufan karin oo aqoonyahana oo libaxya ah haddaynu sidaa wax u miisaanno oo sidaa wax ku qiimayno waxa weeye miisaankaasi muxuu noqonayaa dawaadantayda yaqaanow raganimaa kugu dhan weeye macnaheedu saasoo oo keenaya laakiin ujeeddadu halkan loo jooga waxa weeye in xukunka sharci ee saxda ah ee culimmada u muuqda ay caddeeyaan dadka markaas dhagaysanaya ama danaynaya mashruucani waa laba qolo dadka waxaan ku dhex jira
oo ujeedadu tahay in madowga sharci ee ku jira loo cadeeyo dadka ku socda oo loo bayaamiyo meesha ay ku socdaan waxa ay tahay iyo guud ahaan bulshada oo loo cadeeyo masalada noocani in ay xukunkeedu sidaa yahay qasab ma aha in qof kasta fahmo xukunka sharciga culimadu ay baxsiga iyo baaritaan kadib gaadheen halkay ka soo dhaandiriyeen inuu la qaato ku qanca qasab ma waayo dadka awood uma wada laha ama isku aqli ummadu iyo isku aqoon ma wada aha inay mas'ala kasta isku meel isla dhigaan oo hatta taysla yaqaaneen baa la yiri Soomaalidu yiraahdeen maan rag waa mudciya afkood haddii aqoon lagu kala duwan yahay oo way aragnimo lagu kala duwan yahay oo dana lagu kala duwan yahay in la isla fahmi waayo waa dhici kartaa mas'alo laakiin tan cadeynana waxa weeye culimadu inaanay ka lahayn dan haddii hore waxaan ogaa waqti bangiyada ribowiga sharciyeyntooda laga dooday oo la suuq geeyay culimadu bangiyada islaamka ay sheerin ku leeyihiin sida awgeed bay sheerarkooda difaacanaya ma garanayeen halka la oran doono culimadu suuqa caalamiga la dagaalansan yihiin sidaas ay markaa u diidayaan ama sheerar bay ku leeyihiin oo sidaas ay u dhiiri gelinayaan oo iyagaaba brokeriska qayb ka ah in la oran doono malayn maayo ama ay soo gali karto sida awgeed waxa qaadanaysan waxa weeye masaladan baaritaan kadib nusxan lillah baaritaan kadib naseexo alla dartiya baanu u sheegaynaa waxa aan u garanay ee u aragnay inay qawaacidii sharciga waafaqsan tahay xukunkeedu yahay sida awgeed baaritaan badan kadib iyo hubsasho waxa ay khulaasadu aanu gaadhnay noqotay in camaliyadan la yiraahdo al-mutajara binidaam al-hamish oo nidaam forex ka ganacsiga lacagaha foreign exchange ee suuqyada maanta jira qaabka la soo sheegay looga ganacsadaa inaanay sharci ahaan bannaanayn asbaabta aanay u bannaanayn way badan yihiin qofka muuminkaana mid baa ku filan laakiin si muranku u yaraado oo kaadi badan lagu gogol badiyo asbaab badan baanu sheegaynaa oo mid kasta uu ku filan yahay in ganacsiga noocaasi sharci ahaan aanu ansax ahayn haddana waxaan hubaa in waxaa la sheegayo oo dhammi nin meeli u caddahay meeli ka madowdahay culimada jawaabtooda iyo fatwadooda iyo bayaanintooda xukun maxkamadeed ma aha oo cidna ku qasbi mayso inay suuqa gasho ama ay ka baxdo laakiin waxay cadeynayaan inuu xukunkiisu sidaa yahay oo sharci ahaan xukunkiisu sidaa yahay liyahlika man halaka can bayinatin wa yaxya man hayya can bayina waana balan ilaahay ka qaadanay cadeeyaano لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون دورك علماء أيها أهين ذلك هذا الكحنة أي كوانيان حاران علماءنا أي كان أبهيان سيدا أوجد مسألة باريتان كذب وحعت علماء موقته ويسكر راعين إنه الحكم كيدو يهي إناني بنانين واتكوات صببتم محيطها ومركا كواده usuusha wax lagu xarimo ee wax lagu horta asalku waxa weeye muaamaladan ku asalkooda wax lagu bineeyaa muaamalooyinku asalkoodu waa xalaal laakiin waxyaalaha ay ku xaaraantinimaan baa jira muaamaladani markaas waxyaalaha ay ku xaaraantinimada waxa ka mid ah inay riba ku jirto oo waxa la soo tilmaamay in dhinacyo fara badan deyni ka soo gasho deyntaas oo dulsaar leh waa marka koowaad dilaalka ama brokerka waxaan kala wadaa bangiyo lacagta ka deysada oo deyn ba halka kaga jirta waa mar labaad in kastoo laga isku deyn laga murmo haddana waxa jira raafic almaliya ama leverage oo ah lacag qofkan miskiinka ee boqolka iyo kunka iyo 2,000 ordaya lagu baritaaro ayaa jirto yana waa deyn manfaco iyo qard iyo riba ay ku jirto waxa kale oo ku jira muaamalada noocana waxa ku jira amaahin iyo shaqaalaysiin wada socota ama aqd salaf oo muaawada wax kala deensasho
oo macmiilku brokerku waxbuu macmiilka amaahinaya waxaanu sharti uga dhigayaa inuu isagu systemkiisa ku dhex shaqaysto isagu uu gacanta ugu hayo isagu uu kala wado waa sharti iyo waxa wada socda markaas amaahin baa wada socda iyaguna waa cunsur kale ama qodob kale oo saameyn ku yeelanaya xukunka ama xalaalnimada ganacsiga noocaas waxa ku jira masaladii laga hadlayo oo aan qabdi xaqiiqi ah qabasho ama la wareegid wax ofahan la yiraahdo oo dhab ah inaanu amaliyada dhicin tii xukunka sharciga culimadu tilmaamaan xukunka ahayd iyo tii xaqiiqi ahayd midna inaanay dhab ahaan u dhicin ayaa iyadana masalada ku jirta oo ka muuqata waxa ku jira shuruud mujhif ah xadgudub ah oo ah qofkan brokerka ah inuu heshiiska markuu doono hadduu dantiisa ka arki waayo inuu keligii kansali karo lacagtiisa ka goosan karo taadana kuu soo tuuri karo hadday wax ku hadheen waxyaalaha burinaya waxaa ka mid ah waxa lala shaqaysanayaa dad majhuuliina oo aan la aqoonin oo inta badan gaala u badan ee lala shaqaysanaya oo hantidaadii aad gacanta u gelinaysa dadkaasi iskama dhowrayaan xaaraan iskama dhowrayaan oo qaamuuskooda ama dictionary-gooda kuma jirto inay xalaal miirtaan iyagaana ribxigaagii iyo faa'iidadaadii iyo waxaagii uu soo dhex maraya oo gacanta kugu hayo ku jihaynaya iyana waa masale kale weeye oo saameyn xukunka ku yeelanaysa mucaamaladu marka la soo ururiyo waa siduu sheekhu sheegay waa mudaarabaat wahmiya waa ganacsiyo hawa ah weeye oo arqaam laga ganacsanayo oo dhab ahaan aan xaqiiqadeeda la sugi karin waxa isweydiin leh waxa laga dooday marar badan oo la yidhi oo wadaadow haddii waxa aad tilmaantay oo dhan laga guro oo laga midhguro oo laga midhsiibo mucaamaladii miyaanay xalaal noqonaynin si tuumbadaasi isaga furraato oo dee meeshaas tiifoo jaqaa noqoto looga dhergo miyaanay suuragal ahayn qodob haddaynu u qaadno haddii mid iyo laba laga badbaado suuragal maaha in dhammaantood laga wada saaro oo haddii la dhammaantood laga wada saaro waxay ka dhigan tahay mucaamalada hala baabiyo haddaad tidhahdo masaajidkan tiirkaa ka saar oo tiirarka oo dhan ka saar oo daaqadaha ka saar oo albaabada ka saar oo gidaarada dhinaca saar oo saqafka qayb fuji maxaa soo hadhaya suuragal maaha mucaamalada haddii la yidhahdo waxaas waxa laga saaro waxay ku dhisan tahayba waa qaabkan u dhisan tahay mid iyo laba waa laga saari karaa doodna waa la gelin karaa laakiin in dhammaanteed laga wada saaraa suuragal maaha sida awgeed in la yidhaahdo forecast islaamiya la samaynayaa waxay u eeg tahay xeerkii beridhotanina soo maray la odhan jiray xeerka kufsiga islaamiga ah beri dhoweyto waxay dood ina dhex dhigay in la soo saaray xeer kale xeerka kufsiga ama xadgudubada jinsiga ah oo lagu banaynayo inay dumarku isguursan karaan oo raggu isguursan karaan oo kufsigu uu yahay oo kaliya wixii qasaba nin iyo xaaskiiba ha ahaadaan haddii islaamku habeenkii diido oo iragu jakujeeyo inuu kufsi yahay xeer tilmaamaya oo tilmaamaya haddaad adiga oo 17 jir guursato oo nin ah in lagu qaadiyo in lagu kufsaday waayo qaangaar ma tihid baa la leeyahay xeerka noocaas waxa lagu qurxiyay xagga hore iyo xagga dambe iyo dhexdaba in la leeyahay xeerkan wuxuu waafaqsan yahay shariicada islaamka meel taasoo mid laga qoray ila culimadu ka taba tageen oo la yiri makana waafaqsan oo makana waafaqsan oo makana waafaqsan tan in la forecast islaamiya la sameynaya waxay u ekaanaysaa kufsigii maaragtay islaamka ahaa ay u ekaanaysaa way suuragal maaha in la islaamiyeeyo oo maxaa badiila hadaad tiraahdo wadaado ma arsaaqda ilaahay hortaayinta maxaa badiila waxaan ku leeyahay arsaaqda ilaahay waa badan tahay horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayrka inoo furo faqriga iyo baahida ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga dulqaa mahmaha Soomaaliya waxay jiraahdaan il ribix arkaysa rixi ma eegto il ribix arkaysa rixi ma eegto waata naga haysata runtii qofku markuu wax ku qanco
الدمع كحوق بتو دليل كما أركو قفك مركو الدمع كحوق بتو دليل كما أركو كوسا نحن كله واحد جاي بلدين بالمال كلام هذا حيسا مال كلام بالمال حيسا ده بختي معي وارما بختي ما يسيدو ده أول كهر بواد نولاي سيستم كهر بواد نولاي لكن كم واد على أرسال إلى هنا وبدنت هاي وحي إلى هاي كو قرينا وكو قرية قصة عن دي شيء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يا وحنا جورية يسوى أمير كمؤمنين تا أيو صوت قالي بصرة مجال الله إلى هذا مشاهد بوق قالي تبدأنا ننهر تاجن أيو فرس كيسيري قوانت أن تكني تبدأ مشاهد بوق قالي مركو صوبة حيو يمي فرس كيو كوريه فرس كبار قالوا فولي يدوش كسارة لقى قاتل نيكي نعم تشوبي طبعا نيكي للسعودي أيو كيولي وبالأرض دينار كان قاضو سوق ينو سوي بكوري نيكي باتجي سوق التجي طبعا كوري لو وريجي أيو الله كما يوعين بس دينار كان يجلس يوعي كان markuu kula soo noqday cali cali arkay wuxuu ilaahay baan ku dhaartay waa isagi waa koorihii faraskay mashaayishka waxaan galay anigoo niyada ku haya markaan soo baxo abaal marin dirhamkan diinaarkan u siininka shaqadu ku qabtay ee mashaayishka galay laakiin xalaashi buu ka degdegayo xaraam buu qaatay xalaashi buu ka degdegayo dirhamkan uu qoraa laakiin laba dariiq waa u banaana mid xalaala iyo mid xaraana تبدأ من استعجل بشيء قبل أوانه عقب بحرمانه بلا يرزقه حلاشها أي حاران كنت يكسب كوقات حديث طرقي سقار كلا صحيحين اليوم أي النبي كله عليه الصلاة والسلام لا تستبطئ الرزق فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له أرساق هديك سنين waxay lahayd siinay hadegdeg sanina maxaa yeelay dhiman maayo adoonku ilaa uu helo waxa uu dambeeyay loo qoray ilaa risqigiisa oo dhameystiran oo hadduun ka dhameysto kama dhimanaysid inta ku biicadkaas wixii alla ku qoray ilaa aad ka dhameysato dhaafi maysid waa se laga yaabaa habeena ka qato habeena ku dibirto oo ku daacdo waa suuragal ilaahay baa aqsaada kolba sidoo dadka u siiya فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام وأرساق دونيستا يشقتك نمدا وناجية إذن كو حلاشة قادنيا حاران تنكتغيا روايات لو وحي لها فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته أو لا ينال إلا بطاعته وحي لا يكتسيا لي أرساقا طاعتي سنبا لغو قالا طريقة صحيحة لغو قالا واحدة عادي سوي طلبك هي أرسال دونيستا وناجية ولا لا الله يدي بركيه أرسالنا إلهي سبحانه وتعالى هينوب الله عليه فقرك إلهي سبحانه وتعالى هينقض القال إلهي سبحانه وتعالى حلاش هين وافتشيه حلال قوض الشر وبركه حلال قوض الشر وبدباد حلال قوض الشر وأسباب تقفك الدعاء سلوى أقبل والقرن اسم الحديث يرعيه كي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام كالشيكي الرجل في مسافر كهي أغبر كها أشعف كبوريسنا بصاصنا دباتيسنا أسبابتي مسافر كها الجماعة كل تاجي أسبابتي دعاء لقوا أقبلي شري يهيئاتي دعاء لقوا أقبلي شري أولم بلي إلهي أكون بريء سبحانه وتعالى يا رب بلي رسول كل سيد الله أقبلي واي وحقوقي حرام وحري حرام وحاو مارتي حشرات بيس وحرام سيد الله أقبلي كرام مركا إن قفك الله أقبله أسبابته هو وين أما هو وين كهر تاجني وحوي حرام قوض الشدو إنه حرام قوضه مركا إنه قف جدا دارنا حلال قوضه وحيوته بدباده مستقبل كيس الذنب آخر أدوبة وحلا شنو صحيح يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه قصة لسوريا نن أدوبة سكمل هذا ما ننتسي تبدأنا أنتدي مركو حرب المقاتل أو اللقاء أو كل ننكي مياد قرنا إنسان ماش عنك كيني انتظر حاجات كانت تقول وحول وقت جاهلية
intaana soo islaamin ayaa nin u faaliyay nin baan tusbaxay soo dhuftay faalintana ma aqoonin faalkana waxba kama aqoonin laakiin waan u bahabahayo waxbaan isugu hagaajiyay dabadeedna wixii uu maartay filay uu helay ayaan u sheegay dabadeedna hadduu ii keenay buuli abaalmarintii Abu Bakar gacantiisu geliyay oo uu iska matajiyay wax alla caloosha ku jiray oo dhulka soo dhigay aad buu u dhibaatooday ficilkaas saxaabadii ragii joogay ku ilaahay kuna xariistay maxaa sidaas naftaada heerka u gaarsiis oo saa isugu dhibaysaa luqmad hurumo heesa isugu galaysa wuxuu yiri wallaahi haddii nafta oo raacda mooyaane aan si kale iga soo bixi lahayn haddaan iga soo bixi lahayn naftu raacda mooyaane waan yeeli lahayn رسول كان مقال عليه الصلاة والسلام أيما جسم نبت بالحرام فالنار أولى به شيل كستا أو حرام كوكري حرام كوبقلي نار تمودية وعن كبقلي إن شيل كي كوكر بيسو ونار تيجيسو إلهي سبحانه وتعالى خاطبنا هنا وناتشيو أرسالنا هنا وناتشيو دمجني في وقت ما هذا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أبو ما سنتي